السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan in wada video cusub. maanta bisha waa 26 bishii 12aad 26deeda 2020 maanta waxaan in wada qiso oo qiyaamada ma fiicno haday rag noqoto haday dumar noqoto dadku shaydaana waa jira shaydaana shaatir waaye laakiin gabar kasto iyo wiil kastaba rag iyo dumarba hadaad is alfatiin oo meesha ciyaal imaada ina ciyaalka daraadood ku sabartiin ayaa la isku taa midka kale inuu arko wax xum iyo nadarkiisa oo si kala indhihiisa u arko shala waa taa guursato oo jecel iyo maxaba indhax yaalay marka calaqaad kiina wax yar shaydaan soo dhaxgalana ina midka kala qaraar u noqdo ma fiicno gabar iyo nin iyo naag ayaa isguursaday rag iyo dumar ilaahay baa isku banay inay isguursadaan awlaadna haday meesha imaata waa wixii kasii macaanta badneed waxaa jiri jirta family la dhahay Muna iyo Maxamed iyo Muna waa nin iyo naag labadooda isku wadan ayay ka wada imaadeen waxay sameysay Maxamed aad ay u shaqay jiray sidii naagtiisa oo masruuf kaamila iyo guriga ijaarkiisa waxa dhan wax kaamila ay hesho dadka ragga carabta aad iyo aad ninka wuxuu isku dayaa inay naagtiisa waxba u baahan oo u shaqeeyo oo raashin iyo cunto iyo wax kasto awood kafaala kaamila oo qaado ayuu isku dayaa waana carabta dhama u badan sidii Soomaalida gabdhaha Soomaalida aad familka ay u qaadaan mas'uuliyadooda kaamil ilmaha hooyadeed walaaleed kulli ayuu ninka carabkan u qaadaa mas'uuliyadda familka gabadha uu qaba bas wax kala asaga waxba kama galin abtiya wax ka galin adeera wax ka galin eeda wax ka galin waxba kama qusay naagtiisa ayuu wuxuu ku nooleynaa nolol fiican okay Maxamed wuu shaqay jiray shaqadiisa ayaa aad u badneed subaxdii ayuu baxaa beek ayuu ma jiray Muna ninkeeda waqti badan ma heli jiray ilaa habeenkii maalintii wuu shaqay jiray inuu iyada nolol fiican geynayo dumarka qaarkood hadii ninkeeda u shaqaynayana waxay sameeyaan wax yaab leh ragga biyana inuu xum yahay boqolkii 7 ragga way dib badan yihiin boqolkii 30 dumarka way iska dib badan yihiin sahal ma aho ninka wax kasta uu ku sabraa laakiin naagtiisa oo qayaanto ma sabro oo sariirta u gogol dhaafto ma fahamteen hadda dhimasho ayuu ka xigaa qaarkood way bedilaan qaarkoodna way ka dhaqaaqaan waxay sameysay Muna badam waxay ku marmarsoonay Maxamed ayaa waqti ii waaye oo shaqo badan Maxamed inuu adiga cunto ku siiyo u baxo u soo shaqeeyo mishina adiga wax rabootid ninkeyga ayaa time waaye nin kale diriskooda ay telefoonada kala qaateen meeshii la sheekaysan jirtay la qosli jirtay la hadli jirtay la haasaa jirtay Maxamed uu soo booday maalmaha kamid ah iyadoo sameynaysa wixii oo ninkii la hadlayso ninkeed ugu dacwoonayso ayuu imaad Maxamed dharkiisa ayuu ka qaaday guriga u dhaafay carruurtu u dhaafay hal sano iyo bar dad ayaa soo dhaxgalay family wax kasta wuu diiday inuu saamaxo ma furin ala ciyaalka daraadood ayuuna u furin oo madaxeed u isla laakiin wuu ka tagay alcamum Muna waxay sameysay meel waxay imaatay dadka tasaamax alkariim ay imaatay ugu sheekaysay markay imaatay wuxuu dhahay fadeexadaada saa u soo socotay 3 milyan oo qof meelay fadhido fi adduunka nagala arkay ayaa keentay khiyaamadii ay khiyaamtay yaani inaan nin ahayn ma ku saamaxay wajigaadana ma arki kari weligay damanay ma arkaysid waxaana sameynaa halay tusiyo dhaha iyada daal lagu tusiyo maxaa sameynay itusi ama saameysa ma saamaxay naag dumar oo imaata malaayiin dad dhaxdooda oo ninkeeda dhahayso waan qiyaamay hay saamaxo iyada waxay ku cadoonaysaa waxba dhax ma marin nin iyo naag maxaa iskugu imaan kara hatta adeerka doo dhalay salaamu calaykum ka badan iskugu imaan kartiin tahaaswaad iyo qosol ani mararka qaarkood waxaan arkaa aniga xataa waa ka mid ahay anino niyadeeda waxba ku jirin Soomaalida horta dhaqanka wuu ka duwan yahay dadka carabta
aniga oo ila hadla xataa ma uu qoqos laakiin markuu qofta islaamo oo wiilka ka saay muddo oo ila hadlaaya seeta ma fiicanta xaaladaada alxamdulillah odagayga ma iga maseero mana dadka maseerka iyo waxa fiiriyo ma anna sidoo kale ahay haddoo odagayga soo gabar salaam amba la sheekaysan amba la qoslaay arko ma ka maseero mustaxiil ma ka maseerayi waxaan u maseereenin in waan isubaa haddoo ninkaan ku rabin wax kugu qasbi kara male naagtan hadday ninkan wax ku qasbi kara male fideoga inuu ka dheeraado 11 amba 12 amba 10 daqiiqo ma rabi ka badan waxaa fiican qof kasta inayna qiyaamin ninkeeda naagtana ninkeeda uu qiyaamin oo ilaahay tawakalto cala allah waxay kala duwan yihiin ma jiro nimanka ninkaada nin kale wuxuu ka duwan yahay iska waqti hadduu ku waaye gabaray ninkaada inuu ku ciishiyo oo wax cuntid ayuu waqti kugu waaye ma qurba haddii la joogo benefit ayay ciyaalkeena laakiin haddii wadankii amba wadamo carbeed la joogo waxaa ninkaada nin kale ah ula sheegaysto waa qalad waana xaaraam ilaahayna ma ogolo dhagax in lagugu dila ayay diinta sheegaysaa inkastoo adduunka isbedelay qof kastay diinta islaamka ma sheegaysa inaa nin islaameed la sheekaysatid amba la qosashid waan samay jira aniga igama ahayn ninkan rab laakiin marka qof wiilasheen waad khalisataa ma fiicanta nabad xaalada sheeka la iska geli jira xataa ajaanibta xataa ma fiicanta oon ka saayna sawjaadkiisa amba aan ka saa waa samay jira laakiin xaraam waaye wax fiican ma aho waa wax qaraar ah waa waxaana macayn gabar kastoo haddaa sheeko u baahanta walaalka adeerka abtiga awoowaha hooyada eedada inacadeerta walaasha ugu sheekay qisada ninkaada qisada gurigaada hadduu ka dhaco guryaha way burburaan dadkuna wax ku jecel ma jire waa wax fidna kugu sameynaya walaalayaal videoga saas ayaan kusoo gabagabaynaa gabar kastoo gurigaada waardiyeyso nin kastoo gurigaada waardiyeyso like sharing comment ha laygaga bixiyo like ha laygugu roonaado comment ha laygugu roonaado subscribe ha lay sameeyo ديرجل أي نقنيسا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خلاف بين زوجة وزوج خلاف أدى إلى انفصال. بدنا نشوف إذا كان رح نقدر نرجع الزوجين إلى بعض. نستقبل أولا صاحبة الدعوة منى. أهلا يا منى. أهلا بحضرتك. أخبارك؟ تمام الحمد لله. تفضلي. شكرا. أنت دائما بالحياة تلبسي كده؟ على طول؟ على طول. في البيت كمان؟ لا في البيت لا. منى أهلا وسهلا فيكي. أهلا بحضرتك. منى ربة منزل عندها ولدين، عندها سمر وأحمد ما شاء الله بنت وصبي. كانت عايشة بألف خير وبألف نعمة هي وزوجها. زوجها محمد شعراوي، زوجها رجل مقاولات بيشتغل بيروح الصبح بيرجع عشية، يمكن بيتعب بيشقى. هي بالبيت كانت تحس بشوية ضجر، يعني ما كانت تشوفه كتير للزوج، محرومة شوي. إلى أن ذات يوم في شاب جارون، الشاب يمكن عجبته منى، تحايل وقدر ياخد رقم تليفون منى، وصار بينه وبين منى في مراسلات بالتليفون، مساجات. بعدين اتصل فيها، صار يكلمها، صار في كلام مباشر بينه وبينها، كلام ما بعرف، مراسلات ما بعرف شو طبيعتها. بس في يوم دخل زوجها محمد إلى المنزل وسمعها بتحكي بالتليفون. كانت عم تحكي مع ذلك الشاب، سمعها عم تشكي لهذا الشاب من زوجها من محمد. ثم غضب، يمكن أخذ التليفون منها وطلع لقى فيه رسائل على التليفون وفيها رسائل غرامية شوي، صح؟ حصل. بقى طبعا الرجل زعل كتير وانفصل، ترك البيت ومشي، وما حبش يطلقها بسبب الأولاد، وقالوا لهم 1.5 سنة منفصلين. أهلا أهلا أستاذ محمد، أهلا وسهلا حبيبي، أهلا، كيف أحوالك؟ طمني عنك، تفضل تفضل عيوني، أهلا فيك، طمنا عنك. الحمد لله. شايفك فايت داخل متردد، ليه بقى؟
شوف سيادتك ما تغلطش. انت حذر. الحمد لله. حذر، وباين عليك ما شاء الله بتصلي يا سيدي مش انا اللي وجهت لك الدعوه. انا في ناس لجأوا لي طلبوا مني ان ادعوك الى هذا الاستوديو، ففعلت. ارسلت رساله باسمي تعذرني سلفا عن اي شيء، بس ان شاء الله يكون للخير. ان شاء الله تشكرني بعدين مش تعذرني. ان شاء الله. اتمنى. تحب تعرف مين دعاك؟ اتمنى. يا ريت تطلع بالشاشه. ايه ده؟ طب ليه يعني؟ ده اسمه كلام ده يا جدعان؟ ده اسمه كلام؟ يعني الفضايح كده تبقى على الملأ كده؟ فضايح؟ ليش فضايح؟ ليش فضايح؟ انا الانسانه ديت انا اساسا من سنه ونص وانا مفيش صله ما بيني وما بينها اساسا. بني ادمه مش غير محترمه اساسا. لا يا رجل، ام اولادك. باشا ام اولادي، بس خلاص يعني الموضوع انتهى. يعني معقولي لابنك تقول له امك مش غير محترمه؟ لا يعني انا خلاص، انا بالنسبه لي الانسانه دي لو شفتها لو هي موجوده هنا انا ممكن ما افرتكها. فانا اسف يعني. وانا اسف، بس تفضل خليني هلا ما زال جيت، خليني احكي معك. رحب فيك يعني. لا الله يبارك فيك. انا قلت لك انك تعذرني سلف لانه كده. لا مش كده انا معلش انا اسف، كده ما ينفعش. ما ينفعش كده ما ينفعش. طيب لان ما تبقاش العمليه على الملأ كده معلش. والفضايح على الملأ دي. ما فيش فضايح. لا ما هي صاحبة الفضيحة مش انت. لا. انت مالك؟ انت مش صاحب الفضيحة. ازاي؟ ما هوش ليا اصدقاء وليا اصحاب اما يتفرجوا على الكلام ده يبقى ازاي؟ بس مش انت صاحب الفضيحة. طب ازاي؟ هي بتتحمل مسؤولية. ازاي هي بتتحمل مسؤولية؟ انت الخنت مش انت الخاين، هي. لا بس هي الخاينة وفي نفس الوقت ما انا برضه بتحمل مسؤولية. مسؤوليتي ان انا اتجوزت انسانة زي دي. لا 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 لا, لا. هي بعثت لك رسالة، تحب تسمعها؟ اتمنى. هقول لك رسالة. سامع؟ بس ما كانتش. خليك معي. انا مش عاوز اسيب سيادتك وامشي. ايه خليك معي. انا مش عاوز اسيب سيادتك وامشي. اللي هي عملته احرمها من عيالها ادبا ليها. عاوز تاخد عيالها نوديها محاكم. نوديها محاكم. طيب وانت عارفه محاكم معايا هتعمل ازاي؟ ممكن ما اشوفهمش الا بعد ما يتجوزوا ويخلفوا واحفادهم يتجوزوا. اللي شيء يعني مش رح تسامحها. خليني افهم لا مفيش تسامح. ما فيش تسامح. خلاص الموضوع انتهى. الموضوع انتهى. بتحلوها بالتي هي احسن، مش هيك؟ مفيش حاجه. اوكي. وشو بدي اعمل؟ حاولت يعني شو بدي خبرك؟ انا حاولت. هيدي هذا هدف البرنامج. الله معك. مع السلامه يا حبيبي. شكرا. ام احمد خليكي. انا عارف انا قصتك صعبه. انا بعرف رجل وبعرف رسائل ومكالمات وكذا، يعني قلال الرجال في هذا الشرق اللي بيقدروا يتقبلوا هالموضوع. بشكرك على ثقتك. الناس رح بيقدروا فيكي شجاعتك انك جيتي قريتي بهذا الامر مع انه ما حدا كان عارف. بس اشكرك وان شاء الله على خير. ان شاء الله. ان شاء الله على خير. متشكره جدا. مع السلامه. تفضلي.